hay-adda NISA ee Soomaaliya ayaa idin kulul u jeedisay wariye Haaruun Macruuf oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da oo ay ku eedeysay in uu leeyahay xiriir khatar ku ah amniga qaranka sida ay hadalka u dhigtay hay-adda nabad sugidda Soomaaliya isla markaana uu ku kacay falal baalmarsan anshaxa warbaahinta. NISA ayaa sheegtay in hay-adaha amniga ay la wadaagayso inay ka feejignaadaan xiriirkiisa sida ay tilmaamtay. Hadalka ka soo baxay hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ee ku aadan eedeynta ay u jeedisay wariye Haaruun Macruuf waxaa ka hadlay khubaro dhanka saxaafadda ku xeel dheer kuwaas oo sheegay in NISA iyo sirdoon oo idilba aysan shaqo ku lahayn anshax marin saxaafadeed. Yuusuf Garaad Cumar wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo ah rugcadaas saxaafadeed muddo ka badan 30 sano ka soo shaqeynayay warbaahinta isla markaana madax ka soo noqday BBC-da qaybteeda afka Soomaaliga oo arrintan ka hadlay waxa uu sheegay in dal dimuqraadiyad ah oo kala dambeyn iyo sharci leh aysan hay-adiisu sirdoonku wariyaasha ugu hanjabin baraha bulshada sidoo kalena sirdoonku hay-adaha dalkiisa uusan xog xasaasi ah ugu gudbin baraha bulshada. Yuusuf Garaad ayaa tilmaamay in haddii ay hay-addu hesho xog xasaasi ah ama faldambiyad qof ku jira tallaabada la gudboon ay tahay in ay ku wareejiso booliska baaritaanna uu sameeyo kadibna xeer ilaalintu kiis ku soo oogto cidda dembiga lagu tumay wixii intaa ka dambeeyana sharciga lagu kala baxo sida uu hadalka u yiri Ambassador Yuusuf Garaad. Yuusuf Garaad ayaa soo bandhigay su'aal uu sheegay inay u taalo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ah haddii hay-adda sirdoonka ay dowladdu ka adeejisay in ay u cagajuuleyso wariye Washington jooga oo aad nooga fog una shaqeeya idaacad ay leedahay dowladda Mareykanku waa maxay damaanadda iyo xorriyadda ay sheegi karto inay haystaan wariyaasha dalka gudihiisa jooga. Maxamed Idle, warbaahinta Dalsan, Muqdisho.